Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waad salaamayaa meel kasta aad joogtaan. Waa cashirkeenii afraad hadduu rabbi oggolaa. Excretionka process are military. Saddex baa habka lagaga saaro jirka. Waxa la yidhaahdo glomerular filtration ayaa lagaga saara habka koowaad oo glomerular filtration laga saaro ama uu ka sifeeyo. Tubular reabsorption in la sameeyo oo dib loogu nuugo tubularka. Iyo tubular secretion in dib uu secretion u sameeyo ama uu sii daayo secretion. Marka saddexdaa qaybood ayaa loo qaybinayaa dagaasi excretionka processka habkay marayso ama dibada looga saaro dhiigga. Saddexdaa qaybood baynu qaybinaynaa. Glomerular filtrationku waxa ugu wanaagsan inay kalidu shaqaynayso lagu garto weeyaan. Waxa la yidhaahdaa glomerular filtration rate test waxa la yidhaahdo waa la qaadaa. Tubular reabsorptionka waa in nephrolemonka laga soo saaro deena balarka la geeyo. Tubular secretionka waxa weeyaan peritubular capillarieska in laga soo qaado deena la keeno renal tubular. Marka secretionku waa intaa waa saddexdaa qaybood ama aynu ku sharaxnay. Kalidu waxay ugu yaray ka samaysan tahay waxa la yidhaahdaa nephron oo ugu shaqada badan leh kalida marka la joogo. Marka waxay ka kooban yahay glomerular, proximal tube, lobar venti, distal tube iyo collector duct. Haddii intaa uu ka kooban yahay waxaan soo qaadanaynaa dawadu oo yar yar oo tusaale ahaan soo qaadanayno. Afferent arterial buu ayuu ka gelayaa. Markuu galo waxa halkaa ka dhacay filtration marka ugu horeysa dhacaysa. Marka dambe uu soo dhaafayaa meesha waxa ka dhacaya waxa la yidhaahdo secretion oo hore ku soo qaadanay. Secretionkaasi laba midun baa transportationkiisu dhacaya ama laga saaraya. Labada mid waxay noqon doontaa ugu horeysa organic ionized transportation oo weak acidska dibadda u saaraya. Ka kalena waxa weeyaan organic convent transportation oo isagu u saaraya weak basiska dibadda. Markuu soo dhaafo halkaa waxaa la imanaya bartaa waxa la yidhaahdo reabsorptionkuna diffusion buu ku saaraya wixiisa oo dhan. Iyagana waxa saameeya factors that affect excretionka wax ka mid ah renal functionka ama GFR-ka inuu saameyn inaanu shaqaynayn liver functionka. Hadda waxaanu isla yar eegi doonaa hadduu rabbi oggolaado route drug administrationka ama halka laga qaato dawooyinka. Marka dawooyinka laba qaybood waynu kala qaybin doonaa oo meelo badan baa laga qaybiyaa. Dhowr qaybood bay u qaybin doonaa. Qaybta waxa la yidhaahdaa internal drug administration waa dawooyinka laga qaato afka si gastrointestinal tract looga sameeyo absorptionka. Marka advantage bay leeyihiin. Advantage-ka leeyihiin waa safe horta waa badbaado waa lagu badbaadi karaa ama waa safe ama waa qaar yacni badbaadadooda la hubo. Economically way fiican yihiin oo dhaqaale ahaan way ay jaban yihiin. Disadvantage-ka waxyaabaha disadvantage-ka leeyihiin waa slow onset si yar oo looday ku jawaabaan ama waxay ku jawaabaan si yar oo aan si degdeg ah kuma jawaabaan. Inta badanna kulama shaqaynayaano yani inay waxa la yidhaahdaa compliance iyo waxa jira non-compliance waxaas haddii si fiican ay kugula shaqaynayaan ama dawadii markaaba haddaad ku muddo qofkii uu response ka bixinayo waxaa la oranayaa waa compliance. Laakiin haddaanu response markiiba ka bixinin waxaa la oranayaa waa kulama shaqaynaya. Low bioavailability weeyaan oo availability rectalka waa laga qaataa, oralkana waa laga qaataa, rectalkana waa laga qaataa. Rectalka waxa weeyaan waa dabada marka anaska laga qaadanaya. Waa low bioavailability awoodooda aad u yar. Marka awoodooda ay ku gaarayaan circulationka aad u yar. Few drugs weeyaan waa dawooyin yaryar cayiman baa lagu qaataa laakiin inta badan maaha laguma qaato. Sublingual ayaa jira qaar carabka hoostiisa laga qaato oo waxaa jira waa rapid onset si degdeg ah bay ku jawaabaan.
bypass liverka ayay iyagu sii maraan. Few drugs are available, dawooyin yar baa imika ama in yaro dawooyin khaasa ayaa lagu qaataa. Parenteral drug administration kuwa irbadaha lagu mudo, marka drug administration waa kuwa lagu qaato various sites kala duwan bay injection techniques iyadoo la adeegsanayo hab xirfadeed oo miditaan. Advantage-ka waxaa ka mid ah in ay kula shaqeynayaan oo sidii hore oo markaaba ku jawaabayaan rapid onset markiiba way iyagu si degdeg leh bay ku jawaabayaan oo markaaba jawaabta waad arkaysaa. Viability-gu waxay ka fog yihiin inay beerka sii maraan ama in ay wixii aynu kusoo sheegnay first pass liver effectively inuu wax laga reebo ayay yihiin iyagu. Viability-gu aad buu wanaagsan yahay marka dhiiguma toos loo geynayaa oo marxaladihii kale uu soo maray ayaanu marayn. Disadvantage-ku waa expensive oo haddii aynu tusaale ahaan ceftriaxone soo qaadano ama dasafin aad bay u qaalitaa $3 baa lagaa siinayaa meelaha qaar. More danger weeyaan, aad bay u khatar tahay. Waxaad kaloo u baahan tahay qof xirfadla ah oo ku muda oo kaa siiya wiinka. Marka haddii aad weydo waxaasoo dhan waa caqabad bay ku noqonaysaa, laakiin ka kale afka aad ka qaadanaysaa markaaba economically xataa ku wanaagsan. Laakiin high economically weeyaan kuwani oo waa qof baad la doonaysaa, qofka lacag buu kaa qaaday markaa sababtaasi high economy noqotay. Intravascular drug administration-ka waa maxay? Intravascular drug administration-ku waa kuwa inta badan venous-ka laga qaato. Venka kuwa laga qaataa la yidhaahdaa intravascular drug administration. Aad bay u jawaabaan complete delivery wax caqabado oo ka qabsamsa absorption lagu sameeyo ma jirto 100%. Inta badanna onset action bay sameeyaan oo markiiba way ku jawaabayaan fastest rate-ka in markiiba meeshii site-kii loogu talagalay ay tagaan. No way stopping response drug wax joojin karaa ma jirto inay jawaabto ama yani samayso knockout recall. Wax joojin karaa ma jirto. Antidote-skeygu yani tusaale ahaan daawo cunto oo kale ayaa saameyn kuma yeelanayaan. Marka waxaa jira some problems with IV routes-ka waxaa ka mid ah anaphylaxis-ka, hypersensitivitis-ka wax la yidhaahdo ama xasaasiyadda oo ku keeno qofka. Markaa waxaa la sameeyaa skin test baa la sameeyaa intaanu qofka u bilaabin. Deena hadduu ku fiicnaado qofka haddii qofka aad ku muddo markiiba wuxuu saameyn ku yeelanayaa inuu anaphylaxis sameeyo iyo infection inuu marmarka qaarkood infection ba dhaco. Deena marka haddii hypersensitivitis dhaco deena infection isku bedelo.